taariikhda waddanka Ghana waa waddan juqraafi ahaan dhaca galbeedka Afrika. dalkaasi wuxuu ku dheeraysan yahay gacanka biyaha Gini iyo Badweynta Atlantic. wuxuu xad la leeyahay dalka Burkina Faso oo ka xiga dhanka waqooyi, Togo oo bariga ka xigta, iyo waddanka Ivory Coast oo dhanka galbeedka ka xiga. Ghana waxay ka kooban tahay 10 gobol oo u kala qaybsama 216 degmo. Ghana bad ahaan waxay ku fadhisaa dhul baaxadiisu ay tahay 239,460 oo kiiloomitir isku wareeg ah, waana waddanka sideedaad ee caalamka ugu weyn. lacagta rasmiga ah ee dalka Ghana waxaa la yiraahdaa Ghanaian cedi. 10 Ghanaian cedi waxay u dhigantaa $1. luqadda rasmiga ah ee Jamhuuriyadda Ghana waa af Ingiriisiga, iyadoo ay jiraan luqado badan oo ay bulshooyinka ku hadlaan oo galbeedka Afrika looga hadlo. badanaa muslimiinta Ghana waxay ku hadlaan afka Hausaha. bulshada muslimiinta ah ee Ghana waxaa lagu qiyaasaa inay tiro ahaan yihiin 30%, waxayna ku jiraan heerka labaad oo waxayba ka badan yihiin Kiristaanka oo lagu qiyaaso 24%. muslimiinta Ghana kaliya waxaa ka badan dadka diimaha dhaqanka ku saabsan heesta. Accra waa magaalo ka samaysatay 3 tuulo oo midoobay. 3 tuulo ayaa noqday caasimadda dalka Ghana ee Accra. waxaa lagu qiyaasaa inay magaaladaasi ku nool yihiin 2 milyan oo qof. Accra ma ahan kaliya caasimadda Ghana ee waa magaalada ugu faca weyn dalka Ghana. waxay ku taallaa koonfurta dalka, waxayna saaran tahay Badweynta Atlantic. waa xarun muhiim u ah ganacsiga, isgaarsiinta iyo warshadaha dalka Ghana. magaalada Legon oo aan ka dheerayn Accra ayay ku taallaa jaamacadda caanka ah ee Ghana University, waxaana la aasaasay sanadkii 1948. Ghana waxaa loo aqoon jiray Gold Coast ama xeebta dahabka ah intii u dhaxaysay sanadihii 1314 ilaa 1869, waxayna ku hoos jirtay gumeystihii Ingiriiska. kadib halgan dheer oo ay naf iyo maalba u hureen, waxay madaxbannaanidooda qaateen sanadkii 1957, wuxuuna ahaa waddankii ugu horreeyay oo galbeedka Afrika ku yaala oo xornimadiisa qaatay. waxayna go'aansadeen inay magacii xeebta dahabka ah u bedelaan Ghana. halganka Ghana raggii hogaaminayay waxaa ka mid ahaa Kwame Nkrumah, kaas oo noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee Ghana. waa dad horumarsan, dadka reer Ghana oo ilbaxnimo heerka ay ka gaareen. labada qof oo tilaabo isku jirta ma maqli karo qof saddexaad hadalkooda. sida Soomaalida ma ahan dad qaylo badan. magaalada Timo waa magaalo weyn oo deked leh, waana magaalo kulansatay xadaarad ilbaxnimo fog, waana magaalo wax soo saar oo warshadaha caan ku ah. magaalada Cape Coast oo ku taala bartamaha koonfurta Ghana waa magaalo xarun u ah dhaqanka, ilbaxnimada, aqoonta iyo dalxiiska, waxaana ku taala jaamacadda weyn ee Cape Coast University. tirada dadka Ghana waxaa lagu qiyaasaa 27 milyan oo ruux. waa dad ay ku weyn tahay Afrikaanimada, aadna u weyneeya dhaqanka soo jireenka ah ee bulshooyinka Afrika ay leeyihiin. Ghana waxay caan ku tahay wax soo saarka miraha loo yaqaan cacao oo laga sameeyo chocolate-ka, waxayna u dhoofisaa wadamo badan oo ka mid ah adduunka.